taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed oo ay la socdaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhagax dhigay dugsiga tababarka ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya kaasi oo ka muuqday burbur xoogan waxaana ka soconaya howlo dib u dhis loogu sameynayo dhammaan xarumaha ciidanka badda Soomaaliya taliyaha ciidanka badda ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya waxayna ciidanka goobtu ku soo bandhigeen gaardis waxaana ciidanka badda Soomaaliya ay ku howlan yihiin ilaalada difaaca xeebaha Soomaaliya taliyaha ciidanka badda Soomaaliya Admiral Xasan Nuur Culujoog ayaa ka hadlay ahmiyadda howlaha dib u dhiska ee ka soconaya dugsiga tababarka ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo la dhiso darbi lagu soo wareejiyo oo la dhiso oo markaan saas leenahay annaga tala Ilaahay baan ku soconaa tala bini aadan oo kale oo hadda meel noo taala ma jirto tii Rabbi baan ku soconaa marka taasay kugu yimaadeen wayna ku mahadsan yihiin waxayna nasiyeen maskaxdoodii iyo calooshoodii wuxuu ku jiray oo dhan oo khayr ah bayna siiyeen aad baad mahadsantiin Sareeguta Maxamuud Maxamed Xasan Qaafo ahna gudoomiyaha guddiga hantidhawrka iyo sixitaanka ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhiirigeliyay taliyaha ciidanka badda Soomaaliya howlaha dardargelineed uu ka wado ciidanka badda iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan dardarta cusub oo la soo galay taliyaha cusub ee ciidanka baddu wax lagu farxa inay tahay awgeed ayaana soo kicisay durbadiiba inuu maaragta u adkeysan waayay sida ay maanta ciidanka baddu u yaalo oona taas ku go'aamiyay inuu macnaha cid allaale cid uu kaasho karo oo kaashado isla markaana oo bilaabo dhismo dayactir ah oo halkaan ku diyaariyay ka soo qaybgalkaas aad baan ugu faraxsanahay waxaana ballan qaadaynaa anagoo taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta infantryga anagoo uga wakiil ah inaan garab sii doono taliyaha ciidanka badda taliska ciidanka badda Soomaaliyeed ayaa dadaal ugu jira sidii loo soo celin lahaa bilicdii ay lahaayeen xarumaha ciidanka badda iyo sidii loo heli lahaa ciidanka badda Soomaaliya oo tayeysan Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho